السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله مسلمين تملك استاء جوكتين وولاشينا فلوس عبد الله علي فردوس الدلقو. waxa ay soo gaartay arinta diga ay soo gaartay mataqaanaa si loo hortagi lahaa cudurkaanayta corona ilaahay inuu muriday dhamaantii muslimiinta Allah ka wuxuu ahay ka badbaadiyo. Okay, waxaa jirto shan shay jirto oo muhiim ah oo jismiga difaac u ah jirto. Okay, ta koowaad waxaa waaye sanjabiilka muhiimad fiican oo leeyahay oo jismiga qaasatan difaac weyn oo jismiga oo sameynaa. sanjabiilka soo shaakis marka karsanaysid sanjabiilku darso. sanjabiilku muhiimad waa mid labaad waxay tahay toonta waaye. toonta waxay u fiican tahay difaaca jismiga u fiican tahay toonta waxaa waaye antibiotic camal oo toonta يعني white blood cells ka mataqaana ee xog u yeelaysaa soo jismiga waxay soo gal virus soo galo si uu dagaalami karto leena immunity-kaadu daciif yahay jihaz manaacada daciif tahay waa jirka soo ku imaanaysa marka xoo ahay toonta raashin kasta aad karsanaysid toonta laazim oo ku darsid waa xabad toon laazim tontid oo ku darsatid waa leedanaanta also marra muhiimada leedanaanta tamam leedanaanta waxa ahaaya ina bar ku xoo ahaaya inaad miliimatid caadi u cabtid iyo ina bar ku cuntid so important waa tan kaleeto waxaa waaye insha Allah filfil filfil shaanti filfil wuxuu ahay oo miisa filfishadeed mashaariic karsanaysa filfil ku darsanaysa adaalad badarka mataqaana wax yar filfil ku darsanaysa filfish mar way fiican tahay kadalika laga yaraha asigan asnaanahaneed waxaa waaye difaac muhiim waaye insha Allah oo kor u kortagin waa insha Allah ilaahay inuu wariday laakiin hadda aad nafsakaada inta caafimaad aad qabtid isticmaal soo jismiga difaac u yeeshto ku fiican yahay xataa hergabkii waxaas difaac ka yeelanaysa. Okay, marka kan isu gaaray waa idin qaybsaday ilaahay subhanahu wa ta'ala Allah na kordhiyo oo filka shanta shay ha ilmoobina toonta liinta filfisha dhageeraha iyo sanjabiilka waa heebad ilaahay na siiwaa soo insha Allah ilaahay na badbaadiyo jiradaantii. Thanks.